Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo kala socotaan warbaahinta caalamiga daawadayaal barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee caalamka guud ahaan ka jira si gaar ah waxaan ku eegi doonaa xaaladaha Falastiin iyo Israa'iil dagaalada xooggan ee ka soconaya iyo duqeymo aan loo meeldayn ee lagu garaacayo shacabka magaalada Gaza reer galbeedka oo cadeysanaya la jiritaankooda iyo hubsiinta Israa'iiliyiinta ay ku garab siinayaan baabi'inta shacabka Falastiiniyiinta iyo wadamadii Carbeed ee ugu dhowaa oo Masar ay ka mid tahay oo marinkii Rafax ay ka bixi lahaayeenna ka xiratay wax tallaabo ay cadays ku saareen Israa'iil reer galbeedka aan weli qaadin daawadayaal mar kale kusoo dhawaada Caalam Media YouTube-ka subscribe noo saara fiidiyoga noo share gareeya si bulsho badan aan u gaarno duqeymaha arxan darrada ee Israa'iil ay ka wada marinka Gaza ayaa weli sii xoogeysanaya iyadoo maalin habeen ay joogto ka noqdeen magaalada Gaza gaar ahaan dhulka shacabku uu degan yahay in sida roobka loogu garaaco gantaalo ka soo dhacaya dhanka Israa'iil iyo duqeymaha diyaaraduhu ay geysanayaan maalintii shanaad ay galeen dagaalka iyo duqeymaha ka soconaya Gaza iyo dhulka Israa'iil ee deegaamaysatay ee ku teedsan magaaladaasi Gaza Falastiiniyiintu waxay ku eedeynayaan Israa'iil inay duqeymaha u adeegsanayso hub la mamnuucay in loo adeegsado goobaha bartilmaameedyada dadka rayidka ay degan yihiin wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa baahinaysa in hubka laga sameeyay maadada white phosphorus ama phosphorus cad loo adeegsaday duqeymaha Israa'iil ay ka geysanaysa Gaza inkastoo cadeymo aanay jirin xaqiijinaya haddana Falastiiniyiintu waxay sheegayaan in cadeymo buuxa ay u hayaan Israa'iil waxay sheegtay in wax kasta oo ka xadiday gelitaanka magaalada Gaza oo ciidamadeed inay galaan sidoo kale ay duqeeyaan ay meesha ka saareen si arxan darra ayay magaalada qaybo badan oo ka mid ah u garaacayaan iyadoo halkii marba hubka ay soo tuurayaan la tilmaamo inuu yahay hubtankiisu aad u weyn yahay burburi karana qaybo badan oo magaalada ka mid ah daraasiin dada ayaa ku dhimanaya ilaa iyo hadda duqeymahaasi waxaana la sheegay in dhimashada dadka Falastiiniyiinta ay 900 ay kor u dhaaftay halka dhaawacuna 5,000 oo qofood uu kusii dhow yahay dhanka Israa'iil ayaa warbaahinta waxay sheegayaan in dhimashadu ay kor u dhaaftay 1,200 oo qofood dhaawacuna uu marayo 2,700 in ka badan marba marka ka dambaysa deegaanada Israa'iil ay deganeed qaybo ka mid ah ayaa hadba waxaa laga soo helayaa dhowr boqol oo meydada oo meel wada yaala bararkii ugu dambeeyay waxay Israa'iil sheegaysaa dhul deegaan dadka beeraleyda ay ku badnaayeen oo dhowaan ay ciidanku dib u qabteen sida ay sheegeen in laga helay 100 meydada oo ay ku tilmaameen carruur ay ku jirtay hase haatee muuqaalada la baahinayay ee Falastiiniyiinta deegaanadaasi weeraray waxay muujinayeen in haweenka iyo carruurta aynan dhibaato badan u geysanayn ayagoo dad badan oo Israa'iiliyiin ah oo deegaanada ay ugu tageen oo ay ka sheekeynayaan wanaagii ay kala kulmeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo saraakiil kale reer galbeed oo hadlay waxay si cad u muujiyeen inay taageero buuxda la garab taageen markasta Israa'iil ayagoo sheegay inay Israa'iil ku taageerayaan si tallaabo militari oo xooggan ay Xamaas uga qaadi lahayd madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay in 14 qofood Amerikaan ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay weerarkii ka dhacay Israa'iil ee Xamaas ay geystay dadkaas Amerikaanka iyo kuwa Israa'iiliyiinta ee la laayay dartoodna ay wax kasta ku garab siin doonaan Israa'iil inay geysato dhan kale Israa'iil waxay xaqiijisay in diyaaradii ugu horeysay Mareykanka ka timid oo hubsida ay soo gaartay waddankaas Israa'iil waxaana la filayay in diyaaraddaasi Israa'iil ku kaabi doonto gantaalo iyo hub culus oo ay u baahan tahay in dagaalka ay ku sii xoojiso Mareykanka ayaa sheegay in ficilada kooxda Xamaas ay yihiin waxyaabaha loo dul qaadan karin nooc kasta oo taageero ahna ay Israa'iil siin doonaan dhan kale kooxaha ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq wadamo ay ka mid yihiin ayaa ugu hanjabay Mareykanka haddii uu taageero toos oo ciidan siiyo dhanka Israa'iil in ayaguna ay talaab qaadi doonaan waxaana muuqata in talaabtii Mareykanka ee taageerada ahayd uu si ficil ahaan u muujiyay hase haatee waxaa laga warsugayaa kooxahaas hanjabaadda soo diray ee Ciraaq iyo Suuriya ku sugan Israa'iil sidoo kale waxay soo bandhigtay ilaa 4 hogaamiye oo ka tirsan Xamaas oo bartilmaameedkooda koobaad ay baadigoobayso kuwaas oo doonaysa inay qaarijiso waxaana ugu horeeya hogaamiyaha Xamaas ee Gaza Yaxya Sinwar iyo sidoo kale Maxamed Daif oo la sheegay inuu yahay taliyaha garabka Qassam ee ururka Xamaas waxaa kaloo ka mid ah afayeenka kooxdaasi Qassam lagu magacaabo Cutayba iyo hogaamiyaha guud ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya oo dibad joog ilaa 200 oo bartilmaameed ka badan ay Israa'iil sheegtay in xalay duqeysay oo Gaza ka mid ah kuwaas oo ka mid ahaayeen guri oo ay lahaayeen qaraabo dad la ah Maxamed Daif inkastoo dambiye dagaal ficil u dhigma lagu tilmaamayo ficilada ay geysanaysa Israa'iil haddana wax tallaab qaaday oo dunida ah ma jiraan dhanka Lubnaan iyo Syria ayaa la sheegay in gantaalo looga soo weeraray dhinaca Israa'iil inkastoo aan la sheegin khasaare tiro badan oo ay geysteen sidoo kale kooxaha Falastiiniyiinta waxay weli gantaalo ku garaacayaan magaalooyin ku yaala Israa'iil oo ay ka mid tahay Ashkelon iyo deegaano kale
khasaaraha ugu badan wuxuu ka dhacayaa magaalada Gaza oo duqeyn aan loo meeldaynay ka dhacayso wadamada Carabta in badan oo ka mid ah ficil wanaagsan weli ma ayna samayn inkastoo qaarkood ay muujiyeen inay ka xun yihiin waxa ku dhacay dadka Falastiiniyiinta. haddana dhowr dowladood oo Carbeed ayaa ballan qaaday inay bixin doonaan dhaqaale dadka rayidka ee cuntada Israa'iil ay ka jartay lagu gargaarayo sidoo kale tana dhaawacyadooda lagu daaweynayo. Masar waa wadanka ugu dhow ahna wadan Carbeed ayaa xuduudkii Rafah oo awal baxirna sii adkeeyay xiritaankiisa. inta duqeymo ay socdaan wax gargaara iyo wax ka soo gudbaya midkoodna kama muuqdaan marinkaasi Rafah. inta lagu mashquulsanaa dagaalada Israa'iil iyo Falastiin ayaa waxaa muuqanaya in wadanka Ruushka oo isla mashquulsanaanta reer galbeedka dhanka ay u soo jeesteen iyo dunida uu ka faa'iideysanayo iyadoo la sheegay in wadanka Ukraine uu ku garaacay duqeymo aad u xooggan iyo diyaarado drone oo ismiidaaminaya kuwaas oo deegaano badan oo Ukraine ka mid ah aad u harqiyay. dad badan ayaa la sheegay inay geeriyoodeen oo Ukraine ah hase ahaatee warbaahinta guud ahaan maba tabinayso oo dhanka Falastiin ayay u soo jeedaan. daawadayaal intaas ayaanu barnaamijkeena kusoo koobaynaa. wixii nagu soo kordha barnaamijyadan dambe ayaad la socon doontaan.